waxaan si gooni ula hadlayaa madaxweynaha dalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxaan sidoo kale la hadlayaa Axmed Madoobe waxaan la hadlayaa siyaasiyiinta gobolka ka soo jeeda waxaan la hadlayaa dadka shacabka ee gobolkaasi ku nool waxaan ku hormarayaa Xasan Sheekh madaxweyne markii koowaad oo horta madaxweyne noqoto ma ahan nasiib xad u yeelatay mar labaad inaad Soomaali madaxweyne u noqoto in badan oo dadka Soomaaliyeedna waxay filayeen in madaxtinimadaadu markaan ay ka duwanaan doonto kana wanaagsanaan doonto tii hore nasiib darro ma aysan dhicin xaqada marka laga hadlo hadda darbigay ku taalaa wixii qabsoomay ama dhacay dhowrkii sano hadda u dambeysay madaxweynenimada ahayd waxaa marka la yaab leh in gobolkani Gedo oo aanu ka warqabno dhibaatadii ay fatahaadaha u geysteen oo aan ka warqabno dhibaatada kaleeta ee bulshada ka jirtay inaad maanta markii aad siyaasiyan adiga iyo Axmed Madoobe shakhsiyan isaga hortimaadeen aad xasuusato gobolka Gedo kama turjumayso inaad masaalixdaada iyo danahaaga aad dhiiga dadka reer Gedo iyo shacabkaasi aad ka dhex aragto waxaan leeyahay madaxweyne mas'uuliyad baa gobolka ka saaran horeyna kaaga saarnayd hadda mas'uuliyadaadii horey baad u ilowday hadda waa ku xasuusinaynaa waxaanu kugu xasuusinaynaa intaadan gada aadin wadan raas kamboone aadin Axmed Madoobe Kismaayo joogay Kismaayo aad dhowr iyo 10 sano la soo dhaafayna Kismaayo joogay haddana waxa aad iska haysaan waa Kismaayo Gedo adiga iyo Axmed Madoobe waxa aad isugu timaadaan oo muuqato waxaan leenahay arintaasi inaad sida hadda aad u wajahayso aad ka bedesho mid labaad waxaan sidoo kale ku xasuusinaynaa hadda waxa la yiri sadaqa guriga ka bilaabataa madaxweyne waxaanu ku xasuusinaynaa hadda xukuumadda hadda ku jirta waxa isku keen qaban la Jubbaland iyo Axmed Madoobe iyo Kismaayona waa la dagaalamaya oo Gedaan kala dagaalamaya hadda xukuumadda dalka maanta xukuntana hadda waa isla xukuumaddii aad la dagaalamaysay markii inaad adiga laftarkaagu aadan iska warqabin oo aadan isdhageysan baanu filaynaa hawsha ayada waxaan jeclaan lahayn inaad xukuumaddaada laftarkeedana xukuumad tayo leh aad dadka Soomaaliyeedna u keentid dadka Soomaaliyeedna waxay ka sugayaan waa inta waa ku dheeraaday Axmed Madoobe waxaan leeyahay horta waxaan nasiib wanaag dhowr iyo 10 sano aad madaxweyne ahayd Kismaayo aad joogtay gobolka Gedo iyo Jubbaland inteeda kaleba nasiib wanaag xaqiiqdii ma uusan soo gaarin maamulkaaga sababtuna waxay tahay ma baadan danaynaynba waxa danaynaysay waxay magaalada Kismaayo dekedda Kismaayo inaan meesha lagu imaanin hadda intiina waa joogtaa dhowr iyo 10 sano la soo dhaafayna waa joogtay sababaad marka hadda Gedo waado oo dhowr iyo 10 sano ku suuroobi weyday in maamulkaaga uu ka shaqeeyo in maanta Xasan oo waliba ku diidan uu ka shaqeeyo hadda waxaan u maleynayaa riyo inay tahay adeero meeshaada iska imaanso inta isbedel Soomaali iyo isbedel dadka deegaanadaasi oo ka imaanayo waxaan leeyahay siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolkaasi inaad hadda xasuusataan gobolka Gedo oo bundooyinkiisii iyo kaabayaashiisii dhaqaale burburaan waxay ka turjumaysaa run ahaantii dadka aad tihiin waxaan oranaynaa dadka siyaasiyiinta gobolkaasi ka soo jeeda intii aad maanta dagaal iyo colaad u soo xawili lahaydeen bal marka ugu horeysa mas'uuliyadii la idin saaray aad hore u gabtaan haddaad hadda inta soo noqoteen aad tiraadeen war walaalayaalow mas'uuliyadii aanu gabnay baan hadda xasuusanay oo miyirkiina hadda u soo laabtay qori hanoo keenina bundooyinka noo dhisa dawladnimada aad nagu matalaysaana ku dhisa shacabka aad matalaysaana u dhisa taasaa muhiima taasay dadka reer Gedo u baahan yihiin taasana la idinkaga fadhiyaa hadda hadaysan taas ahayn hadda shalayba noomeedaan tirsanayne maanta meeshan baad noo joogaysaan marka laga tago intaasi waxaan ku soo gabagabeynayaa shacabka reer Gedo waxaan xasuusinayaa Soomaaliya dagaal sokeeya ka dhacay dagaaladii sokeeya dabadeed dawlad federaal la qaatay dawladii federaalka ahayd gobolkana wuxuu nasiib u yeeshay inuu ka mid noqdo maamulka Jubbaland hadda Jubbaland magaciina ninba Kismaayo la jooga idinkuna dhulkii baad haysataan dhimala maalin bay imaanaysaa Jubbaland oo midaysan aad hogaamisaan haddii la yiraahdo inta ka horeysa haddiidin ha ogolaanina in dhiigiina iyo wiilashiina iyo hantidiina lagu burburiyo
siyaasad kismaayo taalla siyaasadda maanta gobolka Gedo la rabo in loo soo xawilo Gedo ma taalo kismaayo taalla ha u ogolaanina wiilashiina in lagu laayo ha u ogolaanina hantidiina in lagu burburiyo masaalixdiina iyo danihiina ka shaqeeya waxaad uga shaqeynaysaana waxay tahay labaduba inaysan waxdan idin haynin